إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني الكرام، ربنا سبحانه وتعالى رحمة واسعة النسيي وحنو كرامي إنو نغيري نغدغي خير الورى انتو ربي سبحانه وتعالى أمي كي خير كبدنا أمدي سينان كمن نقنه كاسو إلهي ونوغ ساري ظلمات كي مقديدي نورنا نوبحيي باذي نماذي نغ ساري هنون نوبحيي دور درسي نغ ساري oo dad duroobay inaan noqono nawaafajiyay dhulli iyo dhulmi iyo jaahilnimo iyo burbursanaan iyo dulli noogala saaray sababtii rabbina uu noo saaray cadaalad iyo cilmi iyo midnimo iyo karaamo inuu rabbi naga dhigay addoomaha iyaga oo nabiga uu yahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa rahmada weyn uu rabbiga noo galay subhanahu wa ta'ala. ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala alla uu gallad badan ayuu u galay mu'miniintii markuu ka soo saaray rasuul ayaga naftooda ka ahaaday oo aayaadka qur-aanka ku dul akhriyo dahiro kitaabka iyo xikmadii iyo sunnadii baro ka horana waxay ahaayeen baadinimo cad kuwa ku sugan ayuu rabbiga leeyahay subxaanahu wa tacaala. ikhwaani alkiraam, nabigeena calayhi salaatu wasalaam risaaladaas cad ayuuna gaarsiiyey gaarsiintii ugu qiimo badnayd ummadana wuu u naseexayey jidka allana wuu ku jihaaday ilaa xaqa iyo mowdka ugu yimaada sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa biabii huwa wa ummii sala allahu calayhi waaalihi wasalam. risaalada ayuu nabigeena ku sabray calayhi salaatu wasalaam. meelaha uu la maray waxaa ka mid tahay taa'if lagu diray ilmihii iyo waxmagaradka iyo kuwa waalnaa lagu diray ilaa dhiigga ka da'ay magacii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kabaha buuxiyo. saxaabadiisii kaanuu yucadabuun waa la cadaabayey, dhibaato badan baa la gaarsiiyey, weliba ayagoo dhawaaqayaan. intaas ayuu ku sabray, iyagana ay ku sabreen. magaalada uu ku dhashay ku barbaaray isagoo muxuu ahaa milicsana oo weliba wanaaggeeda tilmaama ayaa si sandulla looga saaray sala allahu calayhi waaalihi wasalam diintan darteed. madaxiisa ayaa la dakri, ilkiisa ayaa la jibini sala allahu calayhi waali wasalam. uxud cadow oo dhan ayaa isugu imaani in nabigeena calayhi salaatu wasalaam madaxiisa la gooyo darteed. axzaab yahuud ayaa dhowr jeer isku dayi inay disho, mar ay sun ugu daraan muxuu cunnadii iyo hilibkii, iyo mar ay muxuu ahay toos ugu qasdaanba. uu rabbina ka badbaadinaa subxaanahu wa tacaala. rabbina wuxuu ballan qaaday inuu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam badbaadiya. wallaahu yacsimuka min annaas innaa kafaynaaka almustahzi'iin أليس الله بكاف عبده. إلهنا سبحانه وتعالى بلنتا وفوليي نبينا عليه الصلاة والسلام نين كرشتن أيا أيمد هو إسلامي قرآن كأيو حكبرتي قيب كمدة إلى بقرة إلى عمران وحفظيه. نبينا وحوق رجري قرآن بوسى مجري صلى الله عليه وآله وسلم وحيقه ninka gaalnimadii ayuu ku noqday, ridda ayuu la imaaday, gaaladii ayuu noqday. wuxuu yidhi muxamed wuxuu akhrina waxba kama yaqaano, waxaan u qoray. ninkii ilaahay baa muxuu ahay dilay subxaanahu wa tacaala. cadabahu allahu fi dunya, markuu rabbi dilay u dhintay waa la duugay, qabriga ayaa soo tuuray mar labaad mar saddexaad ilaa markii dambe bannaanka lagu tuura. ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala nebi maxamed qofka dhibaateeya inuu adduunkan ku cadaaba qabla alaakhira, waana dhacday arrinteeda dhowr jeer. إن شانيك هو الأبتر مركو ربي الله سبحانه وتعالى أم جميل إي أبو لهب ونبي أديركي ساي صلى الله عليه وآله وسلم دبك أو جيستين إلى قيام الساعة على عناداس إي عيبتاس إي دبرقعنانتاس آيات هلويان أنك هدي أن مسلمين تي حق النبي نقول صلى الله عليه وآله وسلم أو عدوين قعنت ونو جيستي ونقول يا هينا إلى ما أنت معه يكون نعمي سنينا إن أنا أبى القدس ميننا ودين دوش أنا قصرنا ولي ما أنت لو بهاي إلا بحيو دين دب قام حلي هذا لجاري ويان. لذلك
saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam aad bay weynayn jireen weynayn aad u weyn ilaa cadowgiisii kuwa asaga ku kacsanay sala allahu calayhi waali wasalam ay ku markaati kacaan curwa ibn mascuud athaqafi oo markay gaal ah radia allahu tacaala anhu ardaha soo muslaamay ayaa sulxu lxudaybiya waxaa soo diray nimanka reer qureysheed nabiga inuu muxuuha wada hadallo la galo si heshiis halkaas looga dhaliyo markuu ku noqday saxaabada nabigeenna sida ay nabigu u jeclaayeen u difaaci jireen ayuu ugu warramay qolyihii wuxuu dhahay wartalow waxaan wafdi ahaan ugu tagay boqorradoo dhan wixii boqor wakhtigaa joogay qaysar oo ruumka qolyihii rumaanka madaxdu ahaa iyo kisra oo qolyihii fursiga ahaa boqorku ahaa iyo boqorka xabashadoo najaashi intaba ayaan muxuu ahaa wafdi u noqday oon u martiyey ilaahay baan ku dhaartay weligay maan arkin ayuu yidhi boqorrada ka mid ah oo la weynaynaa sida nebi moxamed sala allahu calayhi waali wasalam ay saxaabadiis u weynaynaayeen saas ayuu leeyahay cadow ayuu marka iyada u ahaa gaalna wuu ahaa laakiin ilaahay baa ku karaamay subxaanahu wa tacala inuu soo islaamo annaga haddii aan muslimiin aan nahay nabigeenna ma weynaynaa mise waa sheegasho aadaabta iyada ma qaadannaa aadaabta nabiga ma qaadannaa calayhi salaatu wasalaam mise waa sheegasho ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan idiin soo dirnay nabi alla waan ku soo dirnay adoo markhaati ah bishaareeyo ah diga ah mu'miniintina inaad ilaahay rumaysaan darteed iyo rasuulkiisa ood nabiga weynaysaan una gargaartaan allana aad tasbiixsataan aroortii iyo galabtiiba ayuu rabbi leh subxaanahu wa tacaala ikhwaani alkiraam nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu leeyahay xadiid muttafaq ah anas bin maalikna u wariyey ilaahay baan ku dhaartaye midkiin allama rumeeyo ilaa aan ka ahaado aniga nebi moxamed sala allahu calayhi waali wasalam mid loogu kalgacaylo badan yahay ilmaha isaga u dhalay iyo waladkiisa iyo waalidkii isaga dhalay iyo dadkoo dhan ilaa nebi moxamed aad ka hormariso waxaa weeyaan iimaan ma yeelinaysaan ayuu nabiga sala allahu calayhi waali wasalam sidoo kale sayid cumar amiiru lmu'miniin radia allahu tacala anhu ardah ayaa nabiga gacanta ayay ishaysteen ama nabiga ayaa gacanta hayey markaasa wuxuu yidhi nabi allow qof kasta ama cid kasta waan kaa jeclay intaanan ka ahayn naftayda markaasaa nabigan wuxuu yidhi maya ha ka yaabin ilaa aad naftaada iga jeclaato iimaankaada meesha ma yeella markaasaa wuxuu yidhi hadda ayaan naftayda xitaa kaa jeclahay markaasaa nabigan wuxuu yidhi sal alla ly slam alaana yaa cumar hadda ayuu iimaankaadii taam io kaamil io sax noqday ayuu le nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ikhwaani alkiraam saxaabada nabigeenna saas ayay carabkooda iyo hubkooda iyo naftooda ay ku difaaci jireen uxud wixii ku dhacay waad ogeydeen 7 saxaabadii reer ansaareed dhalinyaro ah ayaa nabiga hortiisa muxuu ay ku wada shahiiday iyagoo difaacayaan xudaybiya waad garanaysaan ninka kor taagnaa mid isku dayay inuu nabiga garkiisa u qabto in seefta muxuu ahaa lagu dhufan gaaray xaaladaha waad garanaysaan nabigeena sidii loo difaaci jiray sala allahu calayhi wasalam xasan ibnu thaabit radia allahu tacala ardaa gabayga qiimaha badna oo dheera fa ina abi wa waalidahu wa cirdi licirdi muxamadin minkum fidaa'u aniga aabbihii dhalay iyo naftayda iyo sharaftayda iyo nasabkayga oo dhanba waxay furasho u yihiin oo difaac u yihiin nabi moxamed sala allahu calayhi waali wasalam cirdigiisa iyo sharaftiisa waatan uu ku gabyey gabayga qiimaha badnaa radia allahu tacala an wadaa fi lbukhaari wagayrih marka saxaabada nabigeena saas ee ahaayeen booska ay taagnaayeen annaga haddii aan nahay marka ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta wakhtigan joogta maanta waxaa nugu noqotay wax cirka ka soo dhacay oo muxuu ahaa lama filaan ah oo laba qaataan ah cajuusa sida dhabta waa sida ayada wasfiga dhabta oo ay mudan tahay xitaa cajuusada ayaa muxuu ahaa ceeb ku ah in la dhaha cajuusada in la dhaha ayaa ceeb ku noqonaysa sida dhabta ah in ay maanta u bambaxda nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam sharaftiisa oo maxishooto ah oo nin walba yaqaano oo maanta calaa adduunka dhan jooga qofkii isqaawinayey oo murta ahayd oo intaasoo jeer kiristanka noqotay oo ka soo noqotay oo wax walba muxuu ahaa xumaan ahay meel baab xumaan ah oo la gala
oyna gelin ayna jirin inay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam alطaahir almutahar almustafa xabiib الraxmaan ay carabka la laacdo ama ay afka ku taagto runtii waxay nagu noqotay wax cirka ka soo dhacay oo loo dul qaadan karin waa tijaabo maanta annaga ay imtixaan ugu tahay imtixaan ka weyn oo maanta na soo mara inuu jiro uma malaynayo maanta iimaankeen lagu imtixaama qof soomaali ah oo af soomaali ku hadli oo ina adeerkeen ah ama ina adeerteen ah maanta in nabi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam ay carabka ku taagto oy wax ka sheegto oo cid maanta dhawaaqi ayna jirin bilaahi calaykum ayna aliimaan iimaanka xagguu maray islaamnimada xaggay martay khayradii xaggay martay maanta qofka qabiilkiisa haddii saafar looga fiiqo ama xataa la carabaabo ama xataa si sarbeeb wax looga sheega adduunka o dhan ayuu kicinayaa nabigeennana sala allahu calayhi waalihi wasalam maanta cajuusa maxishoota ah oo alla aanan ka baqaynin iyo rasuulkii gaalnimana caddaysatay dhowr jeer inay muxuu ahaa saa u gasho oy saa uga hadasho annagana afka aan xiranno oon iska aamusna aawa dhallinyaradii social mediaha ku jirtay aawa gabdhihii muxuu ahaa ku jiray social mediaha aawa dadka ahlu iimaanka ahaa arrinta ayada ikhwaani alkiraam annagaana la tijaabinaya roobka markuu bilaabani wuxuu ku bilowdaa dhibac ayuu ku bilowdaa dhibac cajuusadaas maalinta isqaawinaysay oo social mediaha soo dhigaysay ayadaa u horraysay qof soomaali ah ama gabar soomaali ah oo isu soo dhigta iyadoo qaawan oo mur ah social media maantana haddii tiktok aad gashaan ama dadka ku jira aad waraysataan gabdhihii soomaaliyeed waxaa weeyaan way fasaadisay qaybo badan oo ka mid ah arrintan waa bilow maanta waxay u soo dhigatay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam gaalnimadii ay ku dhawaaqaysa oo ilad waan ka soo islaamay markaasi dadka istictaaf ay leedahay saasaa liigeli qolo fulaana dhahay intaan ka dhici wahaakada xiilatun shayطaaniya waa xilad shayطaan weeyaan waxay ku socotaa arrinta ayada in dabku isqabsado in la gaalooba inay gabdhihii dharka wada dhigtaan wiilasha ay fasaadaan saan ay ku bilaabato ducaatun calaa abwaabi jahannam waa kuwa albaabada jahannamo taagan oo ummadda waxay ugu yeerayaan maanta haddii aan laga qiiroonin arrinta ayada haddaan liska waraysanin arrinta ayada haddii aan laga qaalmin arrinta haddii aan wax laga qabanin wallaahi uma billaahi uma tallaahi saas ayaa la wada noqon doonaa ama waa loo badan doonaa waxaan garanayaa mar aanan fogayn qanawaadka ka mid a waa qanaad shayطaaniya ama tviyada soomaalida mid ka mid ah ayaa u horraysay gabdho madax qaawan inta hadda hanuunka gadaal uu ka imaada kadib oo heesa inay soo dayso dhowr sano ka hor ay ahayd waa lala yaabanaa maalinta lagama qaalmin lagama hadlin maantana waad aragteen waa caadi in gabadha ayadoo qaawan ayadoo feeraha hore qaawan inay soo dhigto inay ku heesto in gobolladii soomaaliyeed la tago in nairobi la imaado in meel la maro oy soomaali tahay muslimo tahay oo in heblaay ay tahay qabeel fulaan ay tahay caadigay noqotay waa sida ayada waa reer bani israa'iil wuxuu ku dhacay ikhwaani alkiraam arrimaha ayaga ikhwaani waa in an naqifa qawmata rajulin waaxid hal qof waa inaan ka noqono mowqifka isaga ah oo nabigeenna aan difaacno sala allahu calayh wasalam diinteenna aan difaacno sharafteenna difaacno magaceenna difaacno wanaagga noo yeero ummadda soomaaliya ahlu diin inay yihiin ahlu qur'aan inay yihiin ahlulxijaab inay yihiin ahlu sharaf ay yihiin oo caalamka o dhan maanta uu noo ictiraafsan yahay aan ilaashanno alaa cibaad allahi saluu wasalimuu على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم من آذانا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاشغله في نفسه سواء ادعى إسلاما أو ادعى كفرا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين